xadaarada hadalka waxa waaye taleefan markaa ku hadlaysa inuusan qofna ku maqal taleefanka aad ku hadlayso wuxuu leeyahay awood hadalkaaga gaaban qofka dhinaca kala jooga uu xoog u siiyo adiga inaad qaylisid uma baahnid marka inaad adintid uma baahnid soomaalida waa arkaysa halkaas maxaa tiri qaarkood saan u soo qabanaa taleefanka wuxuu leeyahay waxaan ku iri yani dhibka ka haysto xataa taleefan ma lagu hadli yaqaano xamarna waa lagu dhashay waa laga yaabaa ya marka jaamacadda markaad gasho waxaa u baahan tahay inaad fahamto hadalkaaga inuu noqdo hadal layin ah dabacsan hooseeya dadka loogu talagalay bes ay hadli karaan laakiin adoo inta ka sheekaynayo oo qofka ku hortaagan uu inta kuu jiro in xagga laga maqlaayo sheekadaas sax ma aha waxay ka mid tahay xadaarad xumada waxaad arkaysaa makhaayadaha iyo markaad tagto cuntada sida loo cunaayo qofka cunto dalbanaayo fargeeto iyo midiyuu rabaa inuu ku cuno hilibka lo'da iyo waa roon yahay laakiin chickenka ama digaaga waxaa arkaysaa qof qadadiisii dagaal kula jira dhibka ka haysto ya siduu midida iyo fargeetada ugu daba ordaayo waxaa arkaysaa laftiyo faniintay oo qof xagga jooga saxankiisa ku dhacday ya lug digaago ordaysa inta kaa maraysa hadda cad fadhiso cuntada xataa fargeetada marka la qabsanayo waxaa arkaysaa sidii tooreydii asoo u haysta fargeetada oo saas dhahayo xadaarad xumada waxaa ka mid ah qof mutacalim ah oo wax bartay inuu meelaha candhuuf ku tufo candhuufta afkaaga ku jirto xalaal waaye xaaraan ma aha kow midda kale adaa iska leh yacni qof afka wax kuu geliyey tu aa leedahay ma jirto wixii afkaaga ku jiray le waaye candhuuftaadii waaye so inaad meelaha ku tufta sax ma aha waa xadaarad xumo inaad candhuuf ku tufta meelaha saa u joog ma arkaysaa dhinacyada ka tufaayo sax ma aha waxaan kaloo sax ahayn oo wiilasha ay sameeyaan wiilasha ugu badan waxaa arkaysaa nin dhalinyaro oo si fiican u labisan oo sanka farta kula jiro intuu dadka ku sayrinayo sax ma aha iyadana